xubnaha ka dawladda federaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirada xildhibaanada dhammaan culimada sharafta leh iyo odayaashaba dhammaantiin qof walba meeshiisa ayaan ku salaamayaa iyo maqaamkiisa intaas kadib wixii fariimo ah madaxweynaha ayaa noo jooga insha Allah waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo laga bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale ee NCC-da oo hadda shir muhiim ah runtii nagana aqbalay in ay maanta ka soo qayb galaan xiritaanka shirkan muhiimka ah shirkii maanta la lahaa ayadoo waqti yar la haysto waxaa loo bedelay in caawa hadii la hayraado in laga shaqeeyo loo soo jeedo waxay idin tusinaysaa muhiimadda ay leedahay madashan aan ka soo qayb galay mar hadii waxa laga hadlayay uu yahay meelihii ugu darnaa ee ay shabaabka ama khawaarijta hadda leeyahay anigu markii horeba saasan ku tareynay khayr Allah siiyo culimada hadda magaci saxda ah loo bixiyay khawaarijta meelihii ugu darnaa ay naga galeen ee xanuunka badan naga hayay waxay ahayd arrimaha diinta oo ay tashwiish nagaga fureen runtii dhinaca arrimaha diinta marka culimada wasaaraduhu runtii hogaaminaya khayr Allah siiyo waa noo bayaaniyeen sidoo sheekhu sheegay yihiin marna dagaalamaya dagaalkoodu waa nooce aad bay ugu mahadsan yihiin marka maadaama meeshaas maanta ay mareysay halistana ay ahayd inay naga galeen arrimaha diinta oo ay halis geliyeen nafteenna oo ay halis geliyeen maalkeenna oo ay halis geliyeen cirdigeenna oo inta la yiri diintu way u soo degtay si loo ilaaliyo haddii la taabtana ciqaab adag bay ka keentay oo dhan ay ku xadgudbeen oo dhibaato inaga haysatay in la kala bayaamiyo meesha culimada iska lahayd waxayna ila tahay warka inuu cadi shacabka Soomaaliyeed mar dambe ma oran doonaan culimadu may hadlaan inay dhihi doonaan umaran maayo marka taa waa inta qodobka kaliya aan oran lahaa waxa weeye Soomaalidu waa inay ogaato annaga xukuumadii baan nahay markaan fiirinay wax shaqo naloo diray inaan dalkan ka shaqeynaa naloo diray services inaan qabano dadkeenu waxay ugu baahi badan yihiin hadda abaara jira oo jiray oo dhibaato badan hayay abaartaas inaan dalkeenu u gurmano dhibaato badan oo ay nimankaasi dhigeen ayaa keentay inay dad fara badan hooyooyin badan iyo ciyaal fara badan inay maanta baahan yihiin oo haddii aysan jidadka xiran lahayn si sahlan loo gaarsiin lahaa cunto ay cunaan halis bay geliyeen waxaa adkaatay in caafimaad laga shaqeeyo waxaa adkaatay in waxbarasho laga shaqeeyo waxaa adkaatay in infrastructure iyo jidad laga shaqeeyo horeyna in badan waan u sheegay hadii afgooyi halkani oo laga yaabo 30 kilomitir inay ka yartahay magaalada Muqdisho hadda wayba gaarshaybe jidka la dhisayay ay 5 engineer oo jidka dhisayay ku dhinteen afar kalena ku indhabeeshay dalkan meesha la geenayo oo jidad iyo nolol xukuumadda laga sugay xagee joogtaa marka nolosha shardigeedu waxa weeye in shabaab ama khawaarijta wadankan in laga saaro dawladdu way goosatay madaxweynaha ummadda waxa laga rabo iyo waxa inoo yaala insha Allah sharxi doona oo ku soo dhaweynaya madaxweyne ku soo dhawow adigoo aad u mahadsan